عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا جنالكينا iga filo wanaag maanta maxay noo wadaa casiir aad iyo aad u macaan badan maasha Allah energy badan ku siinayo ma waqtiga afurkana ku munaasab ah waxaan ka sameeyay un laba shay waaye la arki doontaan insha Allah biidnillah maniga hordhacayo oo ujeedaan soo ku soo baxayo quruxdiisa xumbeynaayo maasha Allah laba shay una ka sameeyay waqtiga afurka ah waxaa loo baahan yahay ma wax energy badan ku siinayo oo jirkaaga wax u taraayo ay cabitaan ma la iska cabi karo maasha Allah cabitaanada kala mac kala caraf badan kala insha Allah bishaan aan iskugu dadaalno wax nafsadaada wax u taraayo maanta dhana sooman tahay marka waxaa u baahan tahay waqtiga afurka ah wax macaan badan dhadhan leh qurux badan inaad ku afurtid oo energy na ka heshid maasha Allah kulli waa ujeedaan labada shay bas aan ka sameeyay waa la arki doontaan maniga hordhahayo ka faa'iideysi wacan ugu horeyn channelka hadaa ku cusub tahay subscribe saar gambaleelkana taawo sidoo kuugu soo dhaco wax walbo oo cusub aan soo geliyo u noqoto qofka ugu horeeyo daawanayo sidoo kale waxaa nagala socon kartaa Instagram-ka Facebook Snapchat intaba maasha Allah waa naga heli kartaa videoga haduu ku cajabiyeyna like saar comment qurux badan dhac ku soo sii asxaabtaadana la wadaag la share garee sida ay ka ugu helaan sida adiga ugu heshay ama ugu faa'iideystaan sida adiga ugu faa'iideysatay maasha Allah hala kala faa'iideysto sheerta waa noo muhiim insha Allah hadana asiirkeena ugu galeynaa waa kana inta waxa ku haystaa kantaloog ama batiiqa Soomaali dhahnaa hal xabo batiiq ah iyo xabad liin dhanaan oo yar batiiqana wuu yar yahay aad ma u weyno marka hore u soo dhaqday waxa sameeynaa dhaxdan ku kala dhufanaya oo ujeedaan dhaxdiisa laba shay miraha waa ku baxsan kartaa saan hadda mindida waa ugu bixin kartaa qaanda wax yar saas ku yeelaysaa wixii ka soo haro haduu wax ka soo harina okay waaye ama qaandada saan ku yeelaysaa qaandada wuxuu ku fiican yahay wiliba markuu aad u bisil yahay dakan maskooto waaye aad ma u bisla oo bututuq ma aha sidan maasha dooni ma ahan marka miraha dhan saasa ku soo baxsada waa kaasa hadana waa jarjaranaya ileen qob oo leeyahay ma qobka in laga fiiqa waaye marka dhaxda dhac ku siinaya ujeedaan dhaxda markaas saas ka yeelo sida ugu fudud u jarjari karta waa sidaas ani ma jecli asoo dhan ina oo soo jarja oo asoo dhan in aan dhahay qobka ka soo fiiqo ma jecli sida baradhada camal dada u fiiqdo ani ma jecli saana sameeyaa saan la ugu fiiqdaa waa kaasa saasa sameystaa qofba si uu jecel yahay dada aan dheer camal qobka ku fiiqdo aniga dadkaas xitaa waa kamid ahay saana waa ugu fiiqdaa dada marka waxay jecel yihiin asiga oo dhan inay qobka ka soo wada fiiqaan kadib dhaxda ku dhuftaan ee miraha ka bixiyaan aniga ma ku haysto because way iga tataraaraxa ma aqaano gacantiya saas eebo way iga tataraaraxa ma hadana ma jecli ilaahay markiisana howl fududeen u arka ani qofba si howl fududeen u arka maaha marka waa soo fiiqday kulli waa ujeedaan marka waa iska soo raacsiinaya hadana mar labaad xabada liin dhanaanta waatana xabada liin dhanaan ku shiiday waa miiraya ku shiiday waxa ula jeedaa inta jarjara ku shiiday ileen waxa miiroy ma ahan maaha ina miiro marabo hadii aan liinta ku shiido qobkeeda iyo hadhooti ina miiray noqonay marka alaaba miiro ma alaabtan alaab fudud waaye marka biyaheeda una isticmaalaya hadda aad miiraysidna oo wax kale ku dardaraysid okay waa laakiin geedkan miiris ma u baahna marka liinta waxaan ka bixinayaa miraha ka shaandheynaya waa ka soo miiraha hadda waa ujeedaan waa ku shubtay alaabta kale ku shubanaya
midda kale haddaa baraf ku shiidanaysid waa kaa haddii oo biyo qabow isticmaalaysidna kugu filanba ama talaajada aa gelinaysid oo afurka waqti badan kaaga dhiman yahay sidaa jeceshahay. hool intaas ka fudud ma jirto. marka sokor ku darayaa iyo biyo waa iskula shiidaya intaas waa un wax kala maan laba shay haday soo dhahayaa lisdihin sokorta ana ma xisaabsanin yaa lisdihin laba shay soo dhaaday sokor ku dartay may daytada sameynaysid sokorta way iska daynaysaa hadda macaan ka maarmin malaba ku darsanaysa oo dayt sameynaysid laakiin ani hadda sokor isticmaalaya sokorta ku soo darsanaya marka casiir walbo ama cabitaan walbo qofka sameysanayo sokor wuu isticmaalaa laba shay saasa ka watay ani on kantaloga iyo liinta bis aan u soo sheegay waa kana ka qadal qalaadada noogu jirta waa shiidooya ma sha Allah si dhan cad caana camal oo ujeedaan asaas iskaaga cadaado xumbeeyo waliba xumbuu dhalaa waa kana asxaabe koobka ku diyaarsaneena ku shuban lahaa dhadhan macaan ma sha Allah ma laga sheekeyn karo caraf badan liinta caraf iyo dhadhan yar asi zaaid u macaan yahay marka liinta maxay sameynaysaa macaanka oo ziyaadada ah oo dhuunta ka kala jaraayo markino ka kala goynaysa marka dhadhan ay siinaysa ay caraftiisa iyo carafta liinta markii la isku daro caraf kale oo laga sheekeyn karna ka soo baxaya meesha saas darteeda liinta ugu darsaday kaligiisa dada jecel laakiin ani liin inaan ku darsadan jeclahay mar walbo qofba si uu jecel yahay laakiin liinta sidaan iigu sheegayba dhadhan kale oo ma sha Allah iyo caraf kale siinaysa oo caraftiisa ka duwan asi zaaid oo carfa inta taqaano way taqaana zaaid oo carfa liinta markii lagu daro caraf nooc kale ka soo baxayso oo nafta u roon hadii dhan aad jeclaysanaysid dhadhan nooc kale ka soo baxayo oo nafta u roon oo aad jeclaysanaysid mar walbaba marka cabitaankan soo baroobeeya hadda aad dhamiso waa hubaal mar walba waa sameysanaysaa Ramadaan ha ahaado ama yuusan ahaanin mar walba inaad sameysanaysid taas anaan iga hubo maash dada ku dhahayo ani batiiqa ma jecli cabitaanka laga sameeyo saan ka soo sameyso markaasaan ku soo sameysatid arag dhadhanka soo kuugu soo baxo inuu ku cajibiyo ana ku tusay markaas insha Allah soo baroobe inta taqaana way taqaana intaadan aqoonin soo baroobeeya commentiga iigu dhaafa wixii u aragteen ay soo noqday dhadhanka iyo fikrada ka qabteen iyo hadda saa u aragteen insha Allah kulanti dambe oo wacan wanaagsan. Salaamu calaykum waraxmatullahi